بسم الله الرحمن الرحيم وطلبوا كلا كأنه تقانا هذا توح ونكسر كذا حويسي عدل وجوم كلا تجين يا قاضي بالس لفهم واي قاضي كاسو حلي قاضي كاسو نوفر ناضو هؤلاء هنا وده هذا كمان وصعد ما سود إن شاء الله تعالى إن قاضي كاسنا عن قناة مادنا قاضي حوي وكوميشن كا متضوى هذا لما جعابه مستسرع على لما جعابه قالوا وحلا هذا تضوى أنا بس على لما جعابه مجعابه قالوا كنا وحلا هذا ما كان تضوى على لما جعابه سو شيء يو حيركم بعلما كده ممكن بعدين الله بدأ حاجة تبجيه وتروح لسكوها يوم مسقالة دارت وين تام وقتي marka commission kan ila kala diro waa lagu kala hagay lagu hagay kala madariyo waxaan ku qodob ka saala isku haya la sanad koor ilaa iyo san waxa la nagu yiri berigi aan tagnay magaalada Saaye Kenya war way isku tanaasuli jirteen maxay isku dhacay waxaan waa runtii isku tanaasin jirnay berigi aan isku tanaasin jirnay Ciriya Muuse ayaan go'aanka aan magaalada Saaye tala goyn jirin magaalada ma tala gooyo labadaba fahmi weynaa ku nir maga waxa weeye arinta la isku yahay waa inta masagaalbeen magacaana ma toddoba magacaana maga labadooda mid sameeyeen labadooda isku tanaasuleen waxuna waxa toddoba saar ka dhinaa mise toddoba ku sameeyna xaq wuxuu noqonayaa anigu cidii doorashada magaalada Saaye wada aniga doorashada wadana muraadkiina waa doorasho dhacda doorashadii dhici weydana dalku wuxuu galayaa mugdi dadka international committee way naga tagaysaa inaguna kala tagaynaa oo dawlad waxay noqonaysaa fidmo ay noqonaysaa marka waxa weeye inaan soo ducaysana weeye labadan nin magaalada gudoomiye madaxweynaha qoraanka la saaray weeye danta guud ay eegaan waxayna u hareeraysan eegaan inuu midkood tanaasulo raganimo ay u tahay moogta oo dadku ka farxin lahaa laakiin labadoodiiba waxaan maba joogo cirro ma joogo barnaamijka isagana hanoo yimaado insha Allah taala laakiin waan wadinaa xagga saama qaybsiga iyo wixii baan wadinaa qodobada kale mudane gudoomiye Muuse inkastoo marka laga tago mas'uuliyadda siyaasiga ay hayaan inuu Muuse madaxweyne yahay cirna gudoomiye xisbi yahay haddana labada Soomaaliland baa ka weyn maadaama ayagu isu tanaasuli waayeen intiina kale oo ciido kale iyo inta kale xisbiga kulmiye ku jirta iyo inta kale xisbiga ku jirta aan raahdo kulmiye miyaad wax ka duwan ayaga miyaa la keeni kari waayay maxaa iyaga loo dhawaano anagu wixii aan keenay waa soo lagu qaadan waayay anagu intaas oo dhan isku soo dhaweyn anagu wax aanu ka qabno mintaqaanada dacwad commission ma jirto anagu waxaan rabnaa commission kaas inaan wax qalad sameeyn baan qabnaa laakiin waxaan jeclaanay inuu maadaama uu wadani ka ashkatooday inuu xal helo intaasaan isku yeernay in wada hadal u bilownay markii hore kulmiin wada hadal la bilaabay muddooyin waqti madaxweynuhu yiri waxa soo qortay wax kama jira deetii baan ugu dheeraatay tiina waxaan ka leenahay tanaasul baan ka leenahay yaan kala labada qolo anigu markaa waxa weeye waxaan ku talinayaa in labada qoloba labada gudoomiyaha iyo madaxweynaha in labadaba culays la saaro anigu intaan saari karnay saarnay ya haddaanu ficiltanana waddanku meel xuduud tagaya marka waxay nagu jaanisyo badan oo haysanaa fiican xaqii dibadda adduunku inoo soo jeeda laakiin gudaheenu haddaanu hagaagsaneen tii khaatuma taagan oo hadda caawa mar saddexaad kaanu fadhiisana insha Allah taala labada qodob haddaynu ka baxno oo doorashada iyo arinta Cali Khaliif khaatumo oo iyo iska dhamaado haddaan labada arrin sameysano waxaan u gacan bixi lahayn waxyaalaha kale in hor yaala inoo wada jira waxaan wadana kulmiye kaliya ma qaban karo Muuse kaliya ma qaban karo wax lagu qaban wada jir baa lagu qaban karaa saddex xusba gacmo is qabsada ayaa ka faa'iideysan lahaa chance ka fiican ee maanta adduunka inoo soo jeesaday dadkii waxaad moodayaan labadii midna u eegin taaguude mid soo dintiisa gaarka iyo hebel ficil taam oo ay tahay marka anagu waxa leenahay dhalinyaro waa mustaqbalkiini asxaabta ku kala jirtaan labada nin idugu xulay saara anu intan saari kale waa saaray mudane gudoomiye madaxweynaha Soomaaliland lixda ka joog sheegay war farxad leh shacabka Soomaaliland maalinta sabtida leeyahay ilaa hadda warka farxadda la halku ku dambeeyay waxa ka dambeysay Soomaaliland madaxweynuhu halkiisii uu taagan yahay warkii farxadda waa ka suginaa qodobka kale waxayna tanaasul baan sameeynaa iyagana waa ka suginaa
labadaba insha allahu tacaala dee ilaahay shalay tole waxaa madaxweynaha farmaajo xadha ka jira wadda laamiya oo abwana timacad oo horta middan taasan ka hadlay sheegida horta ma sheegay horta ninkan waa qalbi caruur buu leeyahay moogta waninka doonaya inuu inagu la xawsado timacadaan waddo u bixiyay jaamacadda baan u bixnay soo ma timacadda waxaan indhex yaalaa maaha jaamacad baan u bixiyay waxaan laba dal baynu dhahaynay labadii dal mid uu samaysan yahay kii kale in la sameeyaan doonaa insha allahu tacaala oo Soomaaliya oo midaysan oo shan madaxweyne lahayn inaan ka shaqeyno kolba ka yarkan ka yimid dibaddan uu iska tago awood kuma leh reer xamar maaha reer baloweyne maaha degmada ma leh ninkan la madaxweyne ahay moogta marka waxaan doonaa insha allahu tacaala iyagana gacan baynu siin doonaa teen markaan hagaajino adkaysano biloweyne dayuhin baynu sameeyeen ku inagu ka baxnay waanu tahniideynaa waa maalinta ay Soomaaliya calanka qaadatay ilaahay nabad ha siiyo ilaahay sheex ka qaado ilaahay qalbigooda ha siiyo waan tahniideynaa waa maalintoodii laakiin wax yooyin la ilaaho markoo la kala seexday ma jirin kii aan la seexay ka baxnay annagu kuma jirno